بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب العالي القدر عديم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. waxaa ilaahay mahadiya in ilaahay nagu soo guriyo nabad celiyey kadib safarkii aanu ku tagnay jamhuuriyadda Djibouti aynu jaarka nahay, taasi oo ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland dhigiisa jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geele uu ka helay martiqaad rasmi ah oo uga yimiday madaxweynaha Djibouti. booqashadaasi oo ahayd tii ugu horreysay ee madaxweynaha Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu ku tago dalka aynu jaarka nahay Djibouti. booqashadaasi waxay ku soo gunaanadantay guul iyo gobonnimo. labada dal ee walaalaha Djibouti iyo Somaliland waa laba dal oo ilaahay daris ka dhigay, darisnimadana ay u dheer tahay wada dhalasho, dhaqan, af, diin, xuduud, deegaan. labada wadan midkii saameyn wixii ku yeeshaaba ka kalena ku yeelanaya. marka runtii labada madaxweyne sharfani waxay ka wada hadleen danaha labada wadan, cilaaqaadka labada wadan, sidii loo sii xoojin lahaa, sidii la isku kaashan lahaa, ganacsiga la isaga kaashan lahaa, dhaqaalaha la isaga kaashan lahaa, amniga iyo security-ga la isaga kaashan lahaa, sidii la isaga kaashan lahaa maxaan ku dhahdaa dhaqanka, sportska, waxyaabo badan oo la iska kaashaday dowladda iska kaashadaan bay labada madaxweyne ka wada hadleen. waxaa kaloo iyadana aad xusid mudan oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee madaxweynayaashu ay ka wada hadleen ka mid ahayd wadada weyn ee uu maalgelinayo African Development Bankiga horumarinta Afrika oo ka soo bixi doonta Lowyacaddo xuduudda Djibouti iyo Somaliland ay wadaagaan, Lowyacaddo ilaa Zeyla ilaa Farda lagu xidh ilaa Boorama ilaa Kalabayd soo gaari doonta. runtii wadadaasi oo ah mashaariicda ugu waaweyn ee ka fuli doona Somaliland bilowga sanadkan intaanu dhammaana bilaabmi doona oo samayn doonta economic value, yani qiimo dhaqaalo, yani dhaqaalaha ay kor u qaadi doonto wadadaasi, isku socodka dhaqaalaha, isdhexgalka bulshada, tourismka intaba kor bay u qaadi doontaa. labada dal ee walaalaha ah isdhexgalkooda iyo dhaqaalahooda oo isku furani wuxuu qayb ka yahay deganaanshaha geeska Afrika, wuxuu qayb ka yahay xasiloonida, wuxuu qayb ka yahay horumarka iskaashiga laga samaynayo. labada dal ee Djibouti iyo Somaliland waa laba dal oo ilaahay dhigay labadaba meel istiraatiiji ah oo badda cas iyo baabulmandabka ay kulaalayaan. adduunyadana waxyaabo badan baa maanta ku soo kordhaya oo u baahan in la iska kaashado, daruuri ay tahay in laga wada shaqeeya. arrimahaas oo dhan bay labada madaxweyne ka wada hadleen. runtii siyaasadda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu dalkan Somaliland ku hogaaminaya waxa weeye in dariska nabad lagula noolaado, iskaashi lagula noolaado, wax wada qabsi lagula noolaado. siyaasadda madaxweynaha cusub ee Somaliland ku hogaaminaya qarankiisu waxay tahay danta Somaliland waa fairs, waa ta ugu horeysa, waxa la ilaalinayo, waxa la kobcinayo, waxa la korinayo waa danta shacbiga iyo qaranka Somaliland. wixii masaalixa ee dalalka dariska aynu nahay aynu wadaagnana si wanaagsan oo diblomaasiyadi ku jirto, oo dadnimo ku jirto, oo iskaashi ku jiro ayaa loo wajahayaa. madaxweynaha waxa ka go'an iyo xukuumaddiisaba in dhaqaalaha si kor loogu qaado, xiriirka ganacsiga iyo isdhexgalka ee dalalka mandiqadda aynu ku wada naalnaa uu caadi noqdo, wixii shaki keenayana laga fogaado, wixii kala durugsanaan keenaya laga fogaado. taasay runtii maanta si wanaagsan noogu soo dhammaatay socodkii safarkii madaxweynaha. waxaa runtii idna halka aan kula kulannay jaaliyadda reer Somaliland oo dad qiimo leh ah, dadka halkaa degan ee Djibouti degan ee Somaliland ka soo jeeda. inkastoo labada dal ay laba dad oo dhan walbay isku awan yihiin, qoys kastoo reer Djibouti waa qoys kastoo reer Somaliland, qoys kastoo reer Somaliland waa qoys kastoo reer Djibouti. qofka aan halkan degan, Hargeysa degan, ama Gabiley degan, ama Burco degan, ama Boorama degan, ama Zeylac degan, ciddadii ama habaryartii ama seedigii ama inaatigii baa Djiboutina degan. marka waa laba dal horta ilaahay sidaa ka wada dhigay. jaaliyaddii laakiin halkaa deganayd ee reer Somaliland ahayd si qiimo leh oo qadarin leh iyo madaxweynaha ula kulmeen, u soo dhaweeyeen, u marxabaysiiyeen. madaxweynuhuna runtii uu kalsooni buuxdana ku siiyey sida uu madaxweynahoodii u yahay, sida uu ugu faraxsan yahay, qalbiga wanaagsan ay ku qaabileen. gunaanadkii iyo gabagabadii safarkii madaxweynuhu wuxuu ku soo dhammaaday baab cusub iyo xiriirkii Somaliland iyo Djibouti oo kor u sii kacaya, la iska kaashanaya arrimaha aynu soo sheegnay ee dhaqaalaha leh, bulshada leh, dhaqanka leh, ganacsiga leh iyo nabadgelyada leh. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa anoo ku hadlaya afka xukuumadda.